بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها إيه قدرنت مدنه كلنتي وناكسن هلكني وريجينال سومالي تي في ألابا إذن كجي ماذا مقالو ينك متانا مينيابوليس ودنك مريكنكا داوديال barnaamijyadeena waxa ay ka koobnaan doonaan warar wixii dalkii hooye naga soo gaaray oo aan idin akhriyo iyo barnaamij gaar ah oo ku saabsan mudaharaad ka dhacay magaalada Minneapolis dad badan oo boorar wata oo ku mudaharaadaya dibadbaxyana ka sameeyay magaalada Minneapolis ayaanu ka soo duubnay barnaamijkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis waraysiyo aynu ka qaadnay iyo barnaamijka dhamaanba mudaharaadka sida u dhacay mudaharaadkaasi oo looga soo horjeeday dadka isku qarxiya ama dhibaatada ka geysta Soomaaliya iyo sidoo kale ururka al-shabaab ayaa ku qornaa meesha boorarka waxa aynu ku soo qaadanaynaa qaybaheena dambe inagu markaa ku bedelanay barnaamijkeenii baro dalkaaga iyo barnaamijkii taariikhda ka hadlayay daawadayaal intaanan u gudagelin barnaamijyadaasi bal haatan aan dul maro warar wixii dalkii hooye naga soo gaaray wararka madaxdiisana waxaa ka mid ah waa sidee xaalka magaalada Muqdisho magaalada Boosaasana dab ayaa qabsaday xaafado ka mid ah khasaare dhimasho geystay dowladda federaalka meel gaarka ah ee Soomaaliya oo qayladaan taageero u dirtay beesha caalamka in la soo gaaro badbaadinta dowladeeda ciidamo dheeraad Afrikaan ah oo la geenayo Soomaaliya qaramada midoobay oo sheegtay ku dhawaad nus milyan Soomaali ah oo ka qaxday dagaalada ka dhacay magaalada Muqdisho waa sidee ammaanka magaalada Kismaayo warbixin dheeraad ah oo aan idinkaga hayno robab lagu diirsaday oo ka daay dhammaan gobolada koonfureed ee Soomaaliya degmada Xarar Dheere oo abaare laga soo sheegay dhammaan warar kale oo dheeraad ah oo aan halkan idinkaga hayno intaasi waxay ahayd daawadayaal wararka madaxdiisii haatanna isagii oo fidsan wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho sida uu ku soo waramay wariyeen halka inoo fadhiya wariye Xasan Geesay ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho ay si teelteel u soconayeen dagaaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo xoogagga hubeysan ee ka soo horjeeda Xasan Geesay oo ka howlgala idaacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa inoo xaqiijiyay dagaalkaasi in ay ka dambeeyeen duqeymo xoogan oo haatan ka jirta magaalada Muqdisho oo loo geysanaya qaybo ka tirsan deegaanada ay isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda federaalka iyo xoogag ka soo horjeeda ayaa ka mid ah degmada Shibis iyo goobo kale oo ka mid ah xaafadii Kaaraan iyo wadada isku xirta meesha lagu magacaabo Nasiib Buundo iyo gudaha xaafadda degmada Shibis ee magaalada Muqdisho wararka ayaa sheegaya in madaafiicda hubiyaal aan loo aabadayn ay ku dhacayaan xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin wariyaheena Xasan Geesay ayaa inoo xaqiijiyay in ku dhawaad 25 qofood oo dhaawac oo la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho inta la ogyahay dagaaladan waxaa ku nafmuweysay maalmihii la soo dhaafay ilaa iyo 35 qofood sida uu xaqiijiyay wariyaha waxa la sheegayaa labada dhinac in ay sheeganayaan guulo kala sheeganayaan meelaha ay kala fadhiyaan walow ay yar tahay dhinacyada isku dagaalamaya khasaaraha isku geysanayaan oo aan wali cayimayn waxa inka badan waxa la soo sheegayaa magaalada Muqdisho inaysan xasilnayn oo ay ku waabariistaan dadka magaalada Muqdisho daryanka rasaasta subax walba oo ay ku waabariistaan halkaasi inka badan 5 wado oo muhiim ah ayaa xiran buu yiri wariyaheena wadooyinkaasi gaadiidka mari jiray ayaa imanka aysan marin magaalada Muqdisho wadooyinkaasi Muqdisho qaarkood waxa ay ku xirmeen dagaaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka meel gaarka ee Soomaaliya iyo xoogagga ka soo horjeeda waxa markaas sidoo kale xirnaa oo xiran wadooyin xirmay oo u xirmay sababa aawadood dagaaladii u dhaxeeyay sanadihii 2006 iyo 2009 dagaalkaasi oo ahaa dagaalkii Itoobiya iyo xoogaggii ka soo horjeeday meelaha wariyahina uu noo sheegay wadooyinka xiran oo ilama hadda dadku aysan marin ayaa ka mid ah
wadada isku xirta tarbuunka oo tagtag kilomitir lamar 4 cisbitaalkii digfeer iyo wadada aada dhanka warshadaha caanaha halkaasi oo isku bedeshay goobo marka geeduhu ay ka baxaan oo dadka bini'aadanka aysan marin waxaana la sheegay in halkaasi ay aan qof lagu arkin waxaa sidoo kale wadooyinkaasi xiran ka mid ah isgoyskii aadan cadde oo gala aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaa sidoo kale xiran wadada isku xirta Florence ee hormarta Villa Soomaaliya oo u gudubta magaalada xaafadda Xamarweyne ayaa iyana xiran waxaa sidoo kale xiran wadada dheer ee isku xirta Maka al-Mukarrama ee ka soo baxda Villa Soomaaliya oo gasha eelaboorka wadadaasi oo kaliya oo isticmaalaan dowladda federaalka meel gaarka ee Soomaaliya wariyaha waxa uu sheegay meelaha qaar oo aadan moodin dagaal inuusan ka dhicin xaafadda Xiriiryaale xaafadaha ama sidoo kale xaafadda Dharkeenley magaalada sidoo kale xaafadda lagu magacaabo degmada Wardhiigley degmada Wadajir iyo xaafadihii Huruwa oo dadku ay si caadi ah u adeegtaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafayba ay kor u dhaafayso dadka Soomaalida ee ka qaxay magaalada Muqdisho nus milyan 200 oo kun oo ruux oo Soomaaliya ah lagu qiyaasay in halkaasi ay isaga tageen hay'adaha marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR ee u qaabirsan xagga qaxootiga ayaa xaqiijisay arrimaha argagaxale oo aan indhaha laga daawan karin dadka Soomaalida ee dhibaataysan oo intooda badan u qaxay oo ku guda qaxay dalka Soomaaliya meelaha dadkaasi Soomaalida ay u qaxeen ayaa ka mid ah magaalada Hargeysa gobolka Bari ismaamulka Soomaalida Puntland magaalada Garowe magaalada Boosaaso dadka intooda badan ay u qaxeen magaalada Kismaayo dhanka Koonfureed iyo magaalada Marka oo dad badan oo qaxootiga lagu arkay maalmihii la soo dhaafay dad badan ayaa degmooyinkaasi soo aaday ilaa dagaaladii ay ku dhaceen ninka lagu magacaabo Ronmont ayaa xaqiijiyay in ka badan dadkaasi nus milyanka Soomaalida oo dhibaatada soo gaartay iminkana magaalada Boosaaso wararka aynu ka helino magaalada Boosaaso sida uu ku soo waramay wariyaheena Axmed Askar ee magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in dab uu qabsaday kaamka lagu magacaabo Xere Inji oo dadka qaxootiga ay degan yihiin kaamkan qaxootiga ah oo ku yaala bartamaha magaalada Boosaaso ayaa dab qabsaday dabkaasi oo gaaray ilaa 50 guri oo ku dhawaa xaafadahaasi oo ka dhisnaa cooshashka iyo kartoonada ayaa la sheegay in ay dhibaato soo gaartay waxaa kaamka uu ku yaala bartamaha sidaanu sheegnay magaalada Puntland magaaladaasi Boosaaso waxaana uu u dhow yahay xarunta hay'adda macdan baarinta ee Puntland taasoo la sheegay in inta badan ay ku sigatay khasaaro qayb ka mid ah oo soo gaaray halkaasi dabkan oo bilowday xilli hore waxa uu socday dhowr saacadood waxaana taasina ay saabtay inay soo daahaan laamihii debdemiska ee gobolka inkastoo ay goobta mashaqadu ka dhacday ay soo gaareen xilli ay dadkii halkaasi ku sugnaa ay ku guuleysteen dadka reer Boosaaso oo la arkay iyagoo daminaya dabka waxaa la aaneynayaa in dabkani uu ka bilowday haweeney dab shidanaysay si ay cunto uga karsato oo marka ay ka mashquushay hawshii ay qaban lahayd isla markaana ay istaagtay halkaas oo dabkii uu ku fiday waxaana geeriyooday 2 caruur ah iyo oday da ah oo la sheegay in marka dabku uu basbeeliyay oo markii saddexaad oo dab noocan oo kala ah ay qabsanayso xaafadaha cooshashka ee dadka qaxootiga ay degan yihiin magaalada Boosaaso isla markaana uu khasaare geystay waxaana tan u sabab ah iyadoo lagu jiro xilligii xagaaga oo dabeelo duufaan wata ay ka dhacayaan magaalada Boosaaso daawadayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayo waa Regional Somali TV magaalooyinka mataanaha Minneapolis dowladda Soomaaliya ayaa qayladhaan u dirsatay caalamka iyadoo markaa weydiinaysa in la badbaadiyo dowladeeda oo dagaalada culus ay halakeeyeen xogaga ka soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyagu markaa kaabiga ku hayay sida la sheegay in dagaalkaasi uu sii daba dheeraaday
madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa socdaale ku kala bixinayay dalalka Afrika waxa markaa uu soo maray dalka Uganda dalalkaasi Liibiya iyo Ethiopia iyo Djibouti ayuu soo maray sida wararku sheegayaan waxa uu ku aadan yahay maalmaha soo socda dalka Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay ahayd markii dalalka Afrika ay ka dhacday magaalada sirta dalka Liibiya waxaana halkaasi looga hadlay arrimo quseeya dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dheer halkaasi ka aqriyay ayaa jeediyay in lala tacaalo dawladdiisa waxaana uu ugu yeeray dawladda Soomaaliya ay tahay mid fursadda kaliya ay haysata oo dalka Soomaaliya badbaadin karta waa sida hadalka u dhigay madaxweynaha Sheekh Shariif oo horey u soo maray dalalka Djibouti Ethiopia ayaa iminka ku sugan dalka Uganda madaxweynaha ayaa markii uu gaaray magaalada Addis Ababa waxa uu kulan la qaatay kaaliyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika John Carson kaasoo markaa uu ka codsaday dawladda Mareykanka in ay lala tacaasho dalka Soomaaliya waxa markaa dawladda Mareykankuna ay ballan ku qaaday in ay la tacaalayso oo arrimaha tasiilaadka dawladda ku meel gaarka markaa ka taageeri doonto wararka naga soo gaaraya wadamada Afrika qaramada Afrika ayaa sheegaya in halkaasi ciidamada dheeraad ah Soomaaliya loo diri doono ciidamada imanka ka jooga Soomaaliya Afrikaanka ayaa gaaraya 4,300 oo askari dalalka Burundi iyo Uganda ay ka joogaan waxa la sheegay in ay ku soo biiri doonaan dawladaha Djibouti Sierra Leone iyo wadanka Nigeria oo iyagu markaa ballan qaaday in ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada markaa dalalkaasi ammaanka ka ilaalinaya Soomaaliya golaha ammaanka ee nabadgelyada midowga Afrika ayaa qoondeeyay in bilaha soo socda ay gaari doonaan magaalada Muqdisho ciidamadaasi oo isku bedelaya ciidamada oo ahaan jiray waqtiga hore nabad ilaalin iminkana loo bedeli doono nabad dhaliyayaal sida wararka ay u dhigeen ay ka da'een gobolada koonfureed oo Soomaaliya dhammaan meelaha roobabku ay ka da'een ayaa ka mid ah gobolada Jubbooyinka iyo gobolada Shabeellada Hoose Soomaaliya roobkan lixaad leh ayaa waxa ay ka da'een duleedka magaalada Afgooye iyo duleedka magaalada Muqdisho dadka Soomaalida ee qaxootiga ah ee ka cararay dagaalada ayaa waxa markaa ay halkaasi ku haleeshay roobabkan oo ah roobabkii xagaaga ayaa la sheegaya in ay si talantaaliya halkaasi uga da'ayaan qoysaska ka barakacay kuna barakacay kilomitir 13 ayaa la sheegaya in dadkaasi aysan haysan meel ay ka galaan gabaadka qabowga iyo dhaxanta markaa roobabku ay geysanayaan waxa la sheegayaa sidoo kale